baan waxaan saaka u soo kacay ayagoo wali hadlaya walaalayaal nasta waxaan dhiiga madaxa idinka furmi karo wallahi social media ana dagaalo badan ku soo galay I have experience i waraysta waliga allaha hurdadaada ha u seegin hatta hadii mic lagu haysto drop the mic sleep naag shalay galab daaqada candho saarnay xalayo dhan life ku jirtay oo caytamayso dambi daldalaysay haddana waxaan soo kacay oo xamdi kalgac goorma seexatay joogta dhuusada ma seexatid miyaa sleep walaalay sidii inta tartartid marka afar habeen oo straight soo jeedid codkayga saa u koobiyeynaysa waa daashay wax walba sameysay ku soconaysa Soomaali waa indha iyo dhagay leeyihiin Soomaali Maxamed way is wada taqaanaa marka walaalay macaan iska seexo waa daashay ana had ku sheegay joker raggi wax ka qaadi waay macaadalaahi adigoo dumar oo haddana dumar ugu liito xataa afka hore iyo afka dambe aan fariin ku lahayn qabiilkaaga ka baxsan waay dadkaaga ka baxsan waay reesaaq maay ku haysta oo culiyahan maay ku haysta oo jidwaaq maay ku haysta oo ree Cabdulla wiilashooda maay ku qabsado yiri caadada ku dhacdo la wada ogaa ba wax arta hadda jokerna isku soo dhirris nahada meesha ku dhiman stress niyo kugu dhicin codadkaaga ninka u duuduubo lacagaaga yar yar ka qaado labadaada cunuga wardayda ku korso laakiin se aniga ay soo gelin time ma hayo doorashan ku jira dani baa sharaxan adeerkay baa aniga sharaxan aniga teeda kaleeto in la ii hadlaan jeclahay oo aan dhaho walaalayaal oo macaaniyaal fariinta iga gaarsiiyay fariinteedana ku soo gaartay fariintii ani aan ku waday walaashay xamdi baa ku soo gaarsiisay intaan ku dhihi lahaa xamdi baa kuugu soo dhiibay ka dhigaysa xamdi insha Allah kaas xamdi baa aniga saaxiibadee oo kula hadlaysa أنا أنت موتي وأحمر سلام ساء فريستها. أنا بقدر لما تشوف. نيكن اللي بحنيات كأيورة. والله الحمد لله ما شاء الله أد بأوفي عنها أنا برواقو وأسكفي عنها أنا وأسك ضدك ما أكتهاي فيريا بني آدم إيه ما عرفت إيه ولا بنوع. ay waxa jira rabaayad ah oo guriga lagu haysan karo iyo waxay dhahan Mareykanku iyo dadka Yurubiyaanka waxay dhahan wild dog waxa la dhahaa wild dog hada guriga soo gashato mariyuhu ka cunaya wuxuu ka cunayaa dharka cuntada caadiga filjeer ku jirto ka cunaya caruurtu ka qaniinaya ma fahantay marka wax walba la sameeyay waxyaabo badan la isku dayay waa u suurtagal weysa Niciimo qaawan baahayna u suurtagal weysa Niciimo sax sameynaysa hayna waa u suurtagal weysa wixii oo dhan waa ii kan waay naag naasa dheer mid hoos madow mid kor madow wax walba way keeneen wixii dhan ka u suurtagal waayeen Niciimo baa waxa la soo sameeyay naag warday oo gacan ku rimiso aniga iyo codeg naagti baa meeshaan la keenay dhowr bari baan qayqaylisay daaqadiisay kortay daaqadii basra buufsan bay kortay way ka qayqaylisay dadkii oo dhan baa ani emaileyay shocking iyo disaster in baa dhacay wala soo waxa la yiri jokerey daaqada maxaa ku saaray candho waan baxay waxaan raadiyay dad yaqaan waxa la yiri naagta ayuuni baa la dhahaa Sadruddin wiilkii la dhihi jiray oo xafsa kuweyn naagta hotelka la deganeed oo Nairobi aadaysa waaya la dhahay informationkeeda dhan aan soo helay markii la dhahay gabadhaas waay waxaan ku yiri oo naagti maaskiga xirneed oo Sadruddin ku dhagaysa supermarketka dhexdiisa saas ugu deganeed waay markii la dhahay waana warday laba cunug oo wardayna way leedahay ogaadeen bay sheegataa hadda ogaadeen waxay u soo sheegateen wiilkaas markuu de guursan waayo jiq uga dhigay bay ogaadeen intay sheegatay ogaadeen isku dirtaa okay bye waa iska aamusay he ina horta anagu horta saan ku aaminsanahay nin baa noo taa kowde sax boqol rag oo isku jira tahay thank you kowde marka ina canaasiirta iyo ciyaalada iyo isku soo dhistido yani ad la soo yani hadaladooda qadqaayatid ma fiicna dad nin waa baa ani ma bacaynay cidna qisaan ka sheekaynaya soo for wankeedii markaan imika lay keenay ayay sii dayn weyday meegala way isku ilaalinaysay anigu qabiil ma aayin waxay ka dhigaysay inaan beesha ma garanaysaa ogaadin aayay
wixii giftiga ii soo dirayay hablihii ogaadeen bay ahaayeen wiilashii ogaadeen bay ahaayeen iyada wixii ilaalinayay laba qofan anigu miidiyaha ka ciilay qadiija iyo wiilka jibcaalow qoran yaho beesha isaaqa labadaa qofna anigu qabiildan uma aayayo oo qodobka koowaad waxaan u mahad celinayaan kaga faa'iidaysanaya maadaama leefkii naga damay beesha daarood tahawiye ta isaaq hidig iyo marifle madhibaan cid kaste ho iyo hiil iyo comity iyo sheer iyo leeg shaashada igu muujiyey labadii saacadoodan hadlayay iyo maxaa la dhahaa saacadii hore 3 saacadood baan qaatay anigu waa ku mahadsan tihiin baan leeyahay sharaf korkiina ha markii hore waxay qabsatay waxay tiri ku soco adiga ma ogtaa dadna ku socon karo adigoo 20 daqiiqo hadashay may waxay hadashay 5 daqiiqo wax ka yar way dhigtay ma ogta waan qabsaday waan kaga hurgufsiiyey in saacad wax leeg way qabsatay 20 daqiiqo hadashay 20 daqiiqo markay marse way neefturiyay way dhigtay waan qabtay laba dhulka la gaaday laba waxaan ku iri mafaca afkayga ka soo dhacay aadan maleeyay oo dadkii cadeymihii aan keenay wax kasta mar allaali mar adduunyadan codadka shiday isku xaartaa hadda wax weey 3 koobi baata 3 koobi baatee waxaan shiday iyadoo anigu niciima ma ihi gabar sidaasaan ahay waxaan daayay hadda ay taagan tahay ha marka almuhiim inigiyo wada hadlayaan daaro maamo faraanka inay ku dhex jirto wax kasto cadeena markan u keenay shaashadina copyright midna qabsatay hodaniyo wallahi ilaahay isheeda ha iga duwo waa ku raaxaystay markan hadlayaan waan raaxaystaa si toosan maanta u kufsaday TikTokna ka saaray aniga waa raadiyay waxa u raadiyay waa kula raadina warka iga dhageyso ha ina dadka jaanisiina sababta u raadiyay xamdiye waxay ahayd ma waxaan hadda u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa taageersan naagtaas 441keedii waa la keenay iyadoo qaawan oo suuradeedu qaawan yihiin Allahu akbar wariyo reer Canada imtixaan baatiin niyo reer Canada iyo dadka iyadoo qaawan naasaheedii hota ma buurno naag buuran ma waa naag caata ah hadaba faanti waxa soo wana ka daran xamdoy ana ku haya ayadoo nin ku dhagan ku haya kuridin la soo tuman jirtay way qoftan sharmuubta ah dadka aad macaan ku mashquulsan ayta koobiyeynayso ayadu kurti ha yeelato aad waxa kale oo la keenay caruurteeda warday inay yihiin iyaduna ay warday tahay ayna daaro dhan ba ahayd iska badaa ogaadeen ee reer kale ku faanaysa waxa la keenay ninkii iyadu la raaxaysanaysa ee Nasruddin ee reer maxaa la dhahaa Nairobi inankii ogaadeen ilaahay quruxda siiyay ay isku dhajinaysa naagti maskarada xidhneed ee meesha supermarket-ka la joogtay inay ta dhac las keenay waxa la keenay inuu 2 bilood guri ku haystay bilaa mahar la'aan markii dambe sanka intuu ka qabsaday yirina bax ay ku soo noqotay Canada hadda waxa nolosha ka dhacsan weeyaan 44 club house iyo maxaa la dhahaayay waxa looga yaqaanay Sumayo ma yahay Sumayo Siigo walaal waxa saasa anu waan sheegay markiiba ogaadeen inayna ku jirin hablahooda habla xishooda halgamayaal ah dadka ragooda dhinac istaagay inay yihiin noocan ayna ka dhalan copyright inay tahay ma maqlaysaa waan sheegay ragga daarood ama ragga wax kasta waa ku bahdilay waa ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad igula fahanteen maanta xamdiye cod ay leedahay yaa la wiilasha ree Cabdulle caadada ku dhacda waa naaga ani ila mid xamdiye cod ay leedahay wuxuu yaalaa TikTok waa ku soo raadinaya qofkii arkanaha ii soo waa markaan codadkan daaraya beesha ogaadeen bay fakax taxtiri mid kale qofka bini aadanka markuu ilaahay burji siiyo walaalo waxaad ku garanaysaa anu markaan hadlayay waxa ay daawanayay 1,100 1,200 1,300 meegiba way dhex seexatay miyay ooyaysaa miyay sheekaynaysaa miyay isla sheekaysanaysaa waa isku dhex yaacad hooyaday baa sidan igu tiri keer baa sidan igu tiri hawiyihii bay haddana aaday hawiyaha waa kan anigu ka dhashan ku faaniyay waa isii faanisay hadda eeg copyright waxaad ku ogaanaysaa kelmadan anigu dhahay iga daba dhahaysay waxay ku hadlaysina meel aan u dhaqaajin ma qoslay hadal aan markasta ku laan dheereen jirayo naaga wajiga picture baa laga saaraa markii lagu tagay xamdiye aan dhahayo way ku adeegsato waa qosluntay gabadha xataa hadaladeedu way koobiyeysa laan dheera ahay ku tahay inaan suuxan hadalladii wayna daawanaysaa koleybe waxay tiri midgaan baa ta waa lagu guursadaa maba ogaba gurigan anoo 18 jira lagu guursaday hadda anoo 30 jira inaan dhex fadhiyo ninkii ugu horeeyay guursaday inaan weli la joogo maba ogaba marka waxyaabihii beentii sheegaysa waxa kamid ah iga yaabiyay markii meega qaadanaysa ko waxa jir kuma aqaano waxaan maqalgacal baa qoran mise xamdi oo qoran ilaa YouTube-kayga ilaa meega gaadhimka hablaha iskugu qabano oo maxaa la dhahaayay tartanka ilaa club house-na way sheegtay inay taqaano obsess way gabadhan obsess fan aniga horta waxaan dhigi karaa Soomaali waxay sheegayaa hadda ka hor gabadha la dhahayo ma aragtay xamdiye Kylie Jenner gabadha la dhahayo oo Mareykanka ah waxa waaye celebrity way gabadhaas
hadda ka hor ma ogtahay nin faankeeda ahaa dil rabay ma ogtahay kawuu ka siin rabay intuu bistoolad soo gatay gabadhaas aniga obsessa igu tahay taageeray ii ahayd waa hayaa codkeeda anaa idiin shidaa iyadoo idhahaysa Naciimo Joker waa ku taageeraa adduunkan kuugu jeclahay gabadhaas taageero badan ay ii ahayd wax badan ay taageeraysay haddana stress bay qaaday obsessa igu noqotay inay dishaaba laga yaabaaba because qofka markuu saas jaceelkaaga ka bato naceebu jaceelka isku bedelaa marka gabadhan jaceelka ii qabtay naceebu hadda isku isaga kee digdigaysa horta anoo inta taagan bay iska dhigtay oo hadaladeedu way Naciimo yaa dhaxgale warka la soo siiyay waxa iigu dhex jira wararka faarka ah la soo qabtay inay ilka casa jeclayd ay soo wici jirtay habeen iyo maalin baraadin jirtay adiga aad ka balogtay maxaa ka jira waa 441 kale soo siiyay WhatsApp ban ka ku hadlay inta mood aan waxaan ma dhageysanay mood markan kale ka kalan WhatsApp ka hadlay laan dheeranimo no cadda inaad raatay sheekadaas jirto mise waa laga been sheegaya inay ninka indhaha u waxaas hadda ma rabi inaa meeshaan faaray noqonaysaaye faaran way qosolka macalina kor kala soco telefonka qays ani dadka ma baloogareeye asaga iskala wixiisay xamdiye dee faar baa igu soo qabatay maxaa sameeyaa anigoo fadhiye oo meesha kusoo hor fadhiye xamdiye tiktoka waxa la keenay codadkeeda iyadoo ameelis inay hurdo waxay ku hadlayso horta ani markay ay meega qabsatay baa meesha ka baxay wax ay ku hadlayso waa garan waayay ma fahanti habeenkii wiya badnaa waxay ahayd habeenkii ii sheeg ay ayadoo ku jirta life intay saas u dhaqaaqday ay yartay mid kale oo la socotaa jirta ayadana ayaan la dhahaayo ayaan waa aqaanaa ayaan waxaan aqaanay farxii iskoor markay ahayd aqaanay ee ka sheekeyn jirtay waxyaabaha galmada iyo intay is cadeen ka hor ayaan si fiican u aqaanaa ayaan inaan ku dheeraada ma rabo aniga dumaashiday waaye markay farxii iskoor ahayd oo Facebook waxaas ka sheekeyn jirtay de gabar yar ay ahayd da'deeda markaas ma weynin markaas ay tahriib ka soo gashay oo wixii magafo ku soo aragtay unbay wixii nooga sameyn jirtay fiidiyoyo Facebook waa xasuustaan farxii iskoor qofkii xasuusta gabar yar oo ka sheekeyn jirtay nimankii naagaha iyo waxaas iyo waxa afkayga soo mari karin bay ahayd ayaan ku weynay la baxday intay joogtaa marka farxii iskoor aniga ma rabo ilaa inta laga soo ogaanayo because aniga weligii dumaashiyaashii kuma xadgudbin haddana inaan ku xadgudba diyaaru meeyay reerka aad baa u jeclahay waana i qadariyaan qofka hadduu ku qadariyana waa la qadariyaan beentay amuna ma rabo inaan kugu xadgudbo laakiin farxii iskoor lagu dhihi jiray waa kaa saaray niman ogaadeenaan ku garaacay dadkan waa la yaqaanaa maya wiilalo aan ku xanaaqay ogaadeena waa laga xiray social media dhan xataa Facebook looma ogolaan jirin hadda dhow TikTok markuu soo baxay ay TikTok soo furatay farxii iskoor ayadoo is cadaysay hadda ka horna inaa xasuusin ma aqaani Facebooka maray ku soo laabatay yaa jirtay maalin ayadoo dhaansi garaynaysa ayadana saan oo kale sida tan ku dhacday ay ku dhacday ma aqaan gabdhahan waxa dabada kaga dhacay نعيمة هنا أدر والله والله habsaamay adoo gabar ah baa nin kugu habsaamay reer dhan kugu habsaamay oniga waxa tahay sonkor baa kugu yaacda garamaayo anigu laan dheernimo halka ku dhigay oo kartiba halka ku dhigay cod karnimo halka ku dhigay ina adeer macaan wallahi libin baa joogta dhacaya baati kala soo qaadana baati weyn waa soo noqonaya because ina adeer baati weyn baa soo qaadana soo qaad sidaad kale ku qurux badnayd laakiin ilaa ilaa iska jirtay iska soo qaado wallahi qofta dho xamdi ina adeeray kubsigaaga wallahi billahi tallahi waa iga gadaya aniga ma yadimale soo dhawaad kabtaadu nooma gasho ina adeer wallahi billahi iskoor baa jabsatay waayo sababtu intaas life cid ma saarnaan karta moogta qoftii waa is dhiibtay horta iyadoo is soo dhiibi rabtaan ka soo baxay markii dambe soo isma soo wada dhiibin walaalay qofka bini'aadanka markuu hadlaya waxa loo baahan yahay dadka hoosta jooga waa inay adigo markuu qofku ku taageersan yahay waa markaad adigu aad matalaysid bulsho dhan oo Soomaaliyeed baa la rabaa inaad wax u sheegtid runtiina aad cadeysid wax kasto cadeyna markan anigu ku keenay waa la arkay kooniska markay weyday markii hore cid wax u diray ay weyday giftiye midgaane gifti baa hartaa ku giftiga laftigiisa kugu qaatay ha giftiga laftigiisa kugu qaataa waa wax waa la isiya Soomaalina baaldigu way wada sidataa iyagaaba isiya ka gudub markan wax cid siisa weyday hotayadii baa is cumaamaday
يدي اسكت أركي والله ودك است واكسو حرت ودك است ورجوكر كي ورا كفر بدن إن عذاري شكرا إن عذاري كان بين باكترنا ما قرأت هسي ما درت هست إنه وعلي بليز هست وح إنه وعلي سادني ما يحمدي يا محربين حمد أبي حمدي وايو dadka dadku waxa weeye inaan la soo qabto oo dadka chance siino marba in aad leefkii maanta qof kasta soo qabanaysid niciimoy hadii maanta dhacay ka warrama celinaya oo boqolkiiba boqol ma waa laba eray weydii maanta meedkii dhacay ka warrama kufsigii dhacay ka warrama sidee maxaad dareemaysaa iyaduna wayna daawanaysaa way soo dhigtay Soomaali Maxamed ani iima kala harin runtay ka hadleen Soomaali waa hadashay commentiga Soomaali way hadashay qof walba wuxuu soo qoray beenta iska daacadka niciimo maahe